كان وكام كيفتن وعاكوسن قويس دنيرة ويجا مركز سلة دلعي دبعت دنك نولشة قويس كان يأوبا عن كلمة دنك نولشة ما دام حالات عدد والوجر فتاة بيا وبيجا الشباب لنا لقى بعضن قبوا قويس كان يوحى مركزي ما دام هردن كجران dad markaasi ka soo barakacay deegaano kala duwan haday noqon lahayd gobolada Bay Bukol haday noqon lahayd kilinka shaad Soomaaliya dalka Itoobiya qoyska wada danyar ah aan markaasi noloshooda ay ku tiirsan tahay waa dad muruqmaal ah aan awood badan u lahayn inay markaasi ay nololtan ka bedelan ay helaan qoyska wuxuu u baahan yihiin dadka muxsiniinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda inay kaalmo degdeg ah u soo fidiyaan qoyskani iyaga carruurtooda waxay haysto xal dhanka nolosha dadka muxsiniinta ay ku dhaqan dunida dacaladeeda inay jaabka gacanaha u geliyaan ee markaasi kaalmo tan ka balaaran ay soo gaarsiiyaan maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ay u baahan yihiin raashin ay helaan guriyada markaasi ay ku jiraan xorishada ka samaysan aan celin karin roobka iyo cadaalada jirta maalintii iskan danyarta waxay markaasi hay'adda danyar dare ugu tala gashay in maanta ay qayb ka noqoto afurka ay halka ku siiso qoyskan wuxuu baahan yahay kaalmo dadka muxsiniinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda qoyskan iyaga carruurtooda ma haystaan hoy wanaagsan ma haystaan wax noloshooda ay ku maareeyaan qaar ka mid ah qoyskan ayaa waxay ku jiraan xorooyin iyaga markaasi ay ku sugayaan nolosha hay'adaha ka howlgala gobolka Hiiraan waxayna ka sugayaan cid walba wax tari karta inay kaalmo degdeg ah la soo gaaraan haddii aynu nahay danyar daryeel qaar ka mid ah qoyska ayaa ka mahad celiyay deeqdan maanta la guddoonsiiyay ee isugu jirta bariis iyo hilib iyo biyaha muwaasacada oo ugu talagalnay in markaasi ay maanta qayb kaga noqdaan barnaamijka ugu talagalnay afur walaalkaaga taasoo ay loogu talagalay dadka muxsiniinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda inay kaalmo degdeg ah ay ka geystaan meel walba ay joogaan waad u jeedaan dadkan waa dad danyar ah waa dad duruufo dhaqaale ay haystaan waxaa looga baahan yahay dadka muxsiniinta ee ku dhaqan dunida dacaladeeda inay kaalmo degdeg u fidiyaan cilba wax tari karta aniga ali raxli mishi muuse maanta wiilka walaalkayna maanta nagu soo caawiya afurka wanaagsan unako iska dhibaataysan oo biyo baxay iyo baahi iyo rafaad iyo biyo xumo iyo guri xumo ayna haysan nagu soo caawiye waan ku mahadsanay boqol haddana waxaan ka codsanaynaa inuu nagu soo taageero oo walaalkii naga kasii saddeeyankii muxsiniinta oo soo baxay inuu soo baxsadina ilaahay ajar xasanaad Allah ka siiyo iyo ayuu na siiyay gudoomiyaha caraas uu na siiyay bariis iyo biyo iyo hilibkiisa isoo ayaa cabitaanka ayuu maanta na siiyay gudoomiyaha caraas waxaan ugu mahadnaqaynaa inta nagu sadaqaysatay oo suuqa ka wiya bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo maaragtay ku salaamayo walaalaheena noo keen afurka wanaagsan waxaan ku mahadinaynaa maaragtay walaalkay aad caraas iyo baxay na siisay afurka na siiyay oo maanta biyo noo keenay oo hilibka noo keenay haddana waxaan aga baahanahay maaragtay wixii ilmaha in noogu soo diyaar garo wixii dan ay wixii dhaqaale oo noo heli karo wixii taageer in noo si ayagana gacantooda wax ka qabo alla soo galo waa mahadsan ma aan caraas dadkii noo soo bixiyay deeqdan noo soo bixiyay waa mahadsan yihiin kor Allah ka dhigo waa mahadsan yahay intaan noo keenay waa ku mahadsan yahay bariida noola keenay iyo saxan noola keenay hilib noola keenay waa ilaahay kor ha ka dhigo intaan in ka badanne waan ka sugaynaa bariid waa nolosii hilib waa nolosii cabitaan waa nolosii inkastoo sabar yarnay عرعران الله أهي عافماد إلهي كسوبة إلهي إلهي كسوبة إلهي لا تيبور لا يتكلم إلهي قير أكسي أنا قلن أو حنوصل إلهي قير أسي أنفر إنه كيران أنا حتى أول حنوصله وأنا قلنه ضد دنيا عماش الخلال أو حاسي وحكاية بنا إله أفضل أنه كياني وأنه سدداشي أنت في إن بدنا إلهي كسوبينا بريس وأنه لكياني هيلب وأنه لكياني عبتان بيس حن صحا وأنه لكياني wax ka badan Allah noo soo geli kor Allah ka dhigo